nolol wanaagsan oo farxad leh ma rabtaa nolosha inaad ku raaxaysatid ma rabtaa shan arrimood la kaalay wanaag oo dhan aad heshiday أحب الوفاء بشتى الصور. أحب الوفي الأمين الأغر. qof walba waxa uu jecel yahay inuu nolol wanaagsan ku noolaado nolol farxad leh oo ku noolaado se waxa lagu kala duwan yahay nolosha wanaagsan waxay tahay iyo waxay ka dhigan tahay sidee baa lagu gaaraa nolosha wanaagsan waxyaalaheed baa marka la sameeyo qofku nolosha raaxadeeda oo dareemaya kolley nolol wanaagsan sidaad u hesho waxyaalo badan oo la sameeyo baa jira laakiin maanta anigu waxaan soo qaadan shan arrimood oo haddii aad la timaadid aad biidnillaahi nolol farxad leh ku gaarisid tan koobaad ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ku amray laymo ka soo bax fuli inta aad kartid waxa uu kaa reebayna ka fogow ka dheerow inta aad kartid sidaas haddii aad samaysid waxaa hubaal ah inaad ka mid noqonaysid mu'miniinta iyo saalixiinta aw allah subxaanahu wa tacaala aw doortay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ku leeyahay suuratu naxl aayadda 79aad acuudu billaahi min ashaytaani alrajiim waman camila صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون cidda camal wanaagsan la timaada xaal uu yahay mu'min asagoo mu'min ah waxaanu ku noolaysiinaynaa nolol wanaagsan laba naftaada kobci oo wax ku anfaca aakhiro iyo adduunyaba baro cilmigu waa nuur jahliguna waa mugdi diinta islaamka wax ka baro axkaamta shariicada baro wixii cilmi adduunye ah ee muslimiinta aad ku anfici kartidna baro wax akhri wax baadh aqoon kordhiso waayo mar walba oo wax kuu baxo ay aqoon kuu siyaado naftaadu raaxay dareemi farxad bay dareemi lianna cilmigu iyo aqoontu waa cuntada nafta iyo ruuxda saddex waqtigaaga habee oo maaree waayo waqtigaagu marka uu habaysan yahay qof qorshe leh oo fikiraya inaad tihid baad muujinaysaa xumaan oo dhan baad ka fogaanaysaa howlahaaga oo keliyana waad ku mashquulaysaa taasoo sabab u noqonaysa naftaadu inay degto ay raaxo dareento kalsoonida aad naftaada u qabtidna way kuu siyaadaysaa laba muuqaal oo hore ayaan kaga hadlay waqtigaaga sidaad u maarayn lahayd iyo siyaabo kuu fudaydinaya waad u laami kartaa adoo ka faa'iidaysanaya afar bani aadam iska ammaan geli xantooda isku dirkooga xasadkooga calolxumo inaad u qaaddo howlahooga inaad ku mashquusho inaad noloshooda aad ka shaqayso ogow intaad isleedihiin qof dhibaatee qofka ugu horreeya ee dhibaatoonayo waa adiga aday noloshaadu raaxadu ay ka guuri adigaa bilaa farxad ku noolaan adigaa waqtigaaga dayici adigaa qalbigaaga dhaawici inay naftaadu degto ma rabtaa inaad farxad ku noolaatid ma rabtaa bani aadamka iska ammaan geli isku day inaad noqotid mid wax anfaca mid walaalihii anfaca oo wax u qabta marka ay baahan yihiin gaar ahaan waxtar lahow oo dhibaatadaada dadka ka hayso waxa uu nabigeenu yidhi calayhi الصلاة والسلام laa taxaasaduu walaa tanaajashuu walaa tabaaqaduu walaa tadaabaruu walaa yabic bacdukum calaa bayci bacdin wakunuu cibaada allahi ikhwaana almuslimu akhu lmuslim ha isxaasidina ha isku caroonina dhabarka ha isku jeedinina oo ha isgoynina muslimiintu waa walaale ugu dambayn maalinta aad joogtid ka faa'iidayso maalinkii ku dhaafay cashar ka baro berina ha ku mashquulin maalin walba oo aad nabad ku soo toostid waa fursad cusub ee ka faa'iidayso qorshahaaga sida ugu wanaagsan uga soo bax
khaladihii shalay aad gashayna wax ka baro oo hagaaji. Beri bay noqotay weli maad diyaarini, waqtigaaga ha ku lumin, maantaad joogtaaye wax qabso. Maalin walba haddii aad ka faa'iidid, waxaa hubaal ah inay noloshaadu wanaagsanaanayso, naftaaduna ay ku farxayso ay degayso. haddaba 5 arrimood dhaqan geli siday noloshaadu u macaanaato, murugo iyo xanuunna aad uga badbaado. وولالكين رمضان عباس فضلا هدي muuqaalku ku cajabiyay like saar, dadka aad jeceshihiin la wadaag. haddii aad ku cusub tahay channelkana soo dhawow oo subscribe garee. waxaan isku ognahay muuqaal kale oo faa'iido leh insha Allah. wassalaamu calaykum.